civil engineer, Minister of the Petroleum. His Excellency is the biggest project in Somalia who works here, who is Alhamdulillah. soo dhawaada waxaa sharaf inoo ah maanta inaan soo dhaweynay wafdiga walaalaheena Qatar inooga yimid maantana ay noo tahay daahfurkii waddo dheer oo 120 kilomitir ah oo ay noo fangareynayaan walaalaheena Qatar Fund إن شاء الله تعالى وبقول 20 كيلومتر مدة أيوه سوسع ده برنامج كان حال سنة أيوه سوسع ده قرشيه سود وأنا هذا مشروعي وجوينا رنتي شرف بيانات هاي كمبني يكوجول استين وأنا للجوجا وكمبني تركيشة ما أنت أيوه صحيح دعاي إسلام ما أنتنا ده فركي شقدي باللابان يساعدوا إلى هيدمه ومالين تاريخية وقول مدة الصومالية جسوه يتي ما هتقارن وحان وجهنا ولا لهنا قطر أيان وجهنا. الحمد لله رب العالمين. اليوم تم التوقيع على بدء في تنفيذ الأعمال في مشروعين جدا حيويين للصومال وللشعب الصومالي، مقديشو جوهر ومقديشو أفغوي. المشروعين بما يقارب 120 كيلومتر طولي، حارتين في كل اتجاه. احنا نعتقد ان الحمد لله رب العالمين ان هذا المشروع راح يكون له فوائد اقتصاديه كبيره للشعب الصومالي، فوائد اجتماعيه، راح يخفض الوقت وصول البضائع من المناطق الزراعيه والمناطق اللي فيها الثروه الحيوانيه الى العاصمه والى الموانئ ايضا. فالحمد لله رب العالمين قبل سنه وقعنا مذكره تفاهم هنا في هذا المبنى مع الحكومه، وبالله الحمد اليوم وقعنا بدء التنفيذ، مشاريع التنفيذ. كعادة دولة قطر دائما الوفاء بالتزاماتها، وهذا المشروع من ضمن مشاريع كثيرة قائمة الآن في داخل الجمهورية الصومالية. شكرا لكم. دمان دولة قطر iyo dowladda Turkiga iyo xubnaha labada gole ee dowladda dhammaan inta halkan joogta aadan idin salaamaya. waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan joogno dhagax dhigii mashruuca runtii aan aad u sugayno waqti badan oo qaybta ka mid ay tahay jidka isku xira magaalada Muqdisho iyo magaalada Jowhar, kaasoo runtii qayb weyn ka qaadan doona horumarinta Hirshabeelle iyo Shabeellada Dhexe iyo gaar ahaan xamar caasimadda ku xiran. runtii aadan u soo dhaweynayna barnaamijkaas. waxa Ilaahay baa mahad iska leh. maanta waxaan dhagax dhignay jidkii Afgooye koonfur galbeed ayadoo uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Qatar iyo dowladda Turki iyo hay'adii bixisay dhismaha jidka. waxaan u mahad celinaynaa labada dowladood iyo hay'adda bixisay iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ka shaqeeyay waqti fiican geliyay una adeegayay bulshada reer koonfur galbeed laga bilaabo ex control ilaa iyo Afgooy iyo ka dheer baan jecelnahay in la suubiyo. aad iyo aad u mahadsantihiin, kulligood waa u mahad celinaynaa. shaqo wanaagsan. waxaa kaloon aad ugu faraxsanahay anigoo ka wakiilaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inaan maanta u joogno halkan dhagax dhigidda iyo bilaabashada dhismaha jidka xamar iyo Afgooye iyo jidka xamar iyo Jowhar. waxaan mahad u celinaynaa dowladda Qatar madaxdeeda iyo dadka nooga yimid oo iyagu runtii na garab istaagay kuna bixin doona adduun lacag ah oo jidadkaas lagu dhisi doono. waxaan u mahad celinaynaa dowladda Turkiga oo iyaguna ah dowladdii qandaraaska ku guuleysatay, oon rajeynayno in jidkaasi uu noqon doono jid la mid ah jidadka dunida. waxaan u hambalyaynayaa labada madaxweyne maadaama maanta ay maalin cusub u tahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan
shacabka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo shacabka dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoo la bilaabay in laga fuliyo mashruucyadii ugu waaweynaa sidii dalkeenna u bilaabay dibadhiska maanta waa maalin iftiin cusub u ah ganacsatada iyo beeralayda ka yimaada labada shabeelle oo ay u dhib yaraan doonto mustaqbalka inay ganacsadaan maanta waa maalin dhib yar oo u dhib yaraan doonta mustaqbalka dadka Soomaaliyeed oo meelahaas ka jooga maanta waa maalin iftiin u muujinaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed sababtoo ah shaqadii ay soo bilowday xukuumadda 2 sano ka hor ayaa mira dhashay 2 sano kadibna waxaa la arki doonaa haddii Ilaahay yiraahdo mashruucyadan u dhamaaday shaqada maanta aan hayno 2 sano ka hor waxay u muuqatay inaanan ahayn macquul maanta waxaa idin muuqda iftiinkaas aan hore idinkugu sheegnay waxaan aaminsanahay marka in haddii shacabka Soomaaliyeed iyo dawladooda isgarab istaagaan sida waayahanba dhaqanku ahayd la gaari doono horumar intaan ka sii weyn ugu dambeyntii waxaan leeyahay labada madaxweyne iyo dhammaan dawlad goboleedka iyo shacabka Soomaaliyeed ee labada gobol ka soo jeeday ee gobolka Banaadir iyo dhammaan ciidamada iyo cid walba inay garab istaagaan shirkadaha dhisaya jidadkaas sida ugu dhaqsiyaha badanna shaqadaas waa loo bilaabi doonaa waxayna noqon doontaa shaqo miro dhasha mar labaad waa idin mahad celinaynaa waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh